kusoo dhawow isku xirka wararka ee main waa wararkii ka baxay idaacadda raadiyaha main public kuwaasoo isbuuc walba ku baxa afafka kala duwan ee kala ah isbaanishka faransiiska afka bortuqiiska soomaaliga iyo sidoo kale afka ingiriiska kusoo dhawaada main public haddaba waa anigoo cabdiftina barnaamijkan idiin sidaadihinaya maanta waa jimco waana janaayo 6 haddaba qodobada ugu waaweyn wararka maanta aadka u xisaab badan adiin hayo waxaa ka mid ah barnaamij cusub oo weliba saldhigiisu yahay waa isla magaaladani Portland ayaa lagu taageerayaa dumarka ayagu soo galootiga ahi si ay u bilaabaan ganacsi cusub oo weliba ay ugu ololayaan dadka ayaga oo kale ah waxaana mahad iskale ayaa leeyahay arrinkani deeqda federaalka dowladda federaalka ay soo dirtay haddaba barnaamijkani oo ciwaankiisu yahay hoggaan dumar waxaa maamuli doona xarunta soo galootiga ama soo dhaweynta dadka magangelya doonka ahi ama dadka soo galootiga ahi ee isla magaaladani Portland haddaba Reza Jalali oo ah maamulka xaruntani ayaa sheegay in muhiimadda barnaamijkani inuu yahay hoos u dhigista caqabadaha iyo sidoo kale in ay bixiyaan hoggaan loo sameeyo dumarka soo galootiga ahi haddaba xubinta Congress-ka ee ayadu magaceeda loo yaqaano Shelley Pingree ee gobolkani Maine ayaa sheegtay in barnaamijkani lagu taageerayo weliba cadadka ku baxayso barnaamijkan lagu taageero ay noqon doonto 600 oo kun oo weliba deeqda federaalka dowladda ay weliba loona soo marsiiyey bishii hore haddaba Maine ayaa heli doontaa 6.5 milyan oo ah deeqda federaalka oo lagu caawinayo dadka ayagu ka soo jeeda qoysaska ayagu danta yar si guryahooda loo kululeeyo ayadoona sicirka tamarta uu hawada sii galay haddaba deeqdan ayaa ka imaanaysa deeq ay dowladda dhawaan meel mariyaan golaha Congress-ka ku dhawaad 60% dadka degan Maine ayaa ayagu ku tirsan saliida kuleelka ay guryahooda ku kululeystaan tani ayaa weliba waxay ka mid tahay mid ugu sarreysay sanadihii dambe ee dalka qiimaha saliida kuleelka ayaa u dhaxaysa 4.5 weliba galonkii gobolkan Maine sida laga soo xigtay xafiiska tamarta ee duqa magaalada haddaba qodobka kale aan leeyahay wax ka mid ah dadka ayagu u dooda arrimaha guryaha ayaa ugu baaqaya sharci dejinta isla gobolkan Maine inay weliba si degdeg ah ficil u sameeyaan weliba si hoos loogu dhigo qiimaha loona taageero qoysaska ayagu wajahaya ka soo saaridda guryaha weliba dadka u dooda ayaa fariintooda soo dhigay ama ku soo bandhigay mudaharaad ay sameeyeen barnaamijkani ka hor sameeyeen maxkamadda Cumberland bishii December dabayaaqadeedii Victor Morales oo asagoo ah qofka maamula ururka arrimaha guryaha wax ka qabta ayaa sheegay in gobolka inuu dhiso ku dhawaad 1,000 guri ee weliba dadka danta yari degi karaan sanad walba haddii kale ayuu yiri wuxuu sii raaciyay Morales in dadka danta yari ay wajahayaan in guryahooda laga soo saaro bil walba iyo sidoo kale sanad walba qodobka kale urur fadhigiisu yahay Portland ayaa isu dayaya inay caawiyaan dadka ayagu magangelya doonka ahi inay iska bixiyaan qarashka iskuulka ayagoo raacaya barnaamijkan saladlaha ah ee deeqda haddaba deeqdan waxaa bixinaya qolada loo yaqaano Prosperity Maine waxayna weliba wax ka qabanayaan qarashka dhamaystirka ee iskuulka buugaagta iyo sidoo kale ilaa weliba 2 sano ee jaamacadda ama college-ka guud ahaan haddaba kooxdani ayaa sheegtay in diiradoodu ay tahay taageerida dadka magangelya doonka ahi sababtoo ahi ay yiraahdeen intooda badan dadka magangelya doonka ay ma helaan qiimaha ama qarashka lacagta deynta ardayda dalkani Mareykanka inta badan ay qaataan halkani waa wararka Main Public anigoo cabdifina barnaamijkan idiin sidaadhinayay tan iyo isbuuc dambe intaan barnaamij midkani la mid aan ku kulmi doono waa anigoo ah cabdifina oo idinkaga tegaya sidaas nabadgelyo isbuuc dambe iyo kulan kale oo xiiso badan isku xirka wararka ee Main Public waxay iskaashi la sameysay kooxaha ayagu kala duwan ee ku nool ama jooga gobolkani Maine sida ay uga go'an tahay si fidida akhbaaraadka iyo sidoo kale warbiximaha dhammaan dadka ay qusayso waxaan si gaar ah ugu mahadcelinaynaa qolada Maine Immigrants Rights Coalition Present Maine iyo sidoo kale bulshada ayagu ka kala yimid Congo iyo Angola ama Jumbo Africa Catholic Charities of Maine iyo sidoo kale Greater Portland Immigrant Welcome Center Portland Adult Education iyo sidoo kale Portland City Office of Economic Opportunity Prosperity Maine waxaa sidoo kale jira Maine Health Access Foundation iyo sidoo kale the Maine Humanities Council sida taageerada leh iyo dadaalka dheeriga ay sameeyeen sidoo kale isku xirka wararka Maine waxaa suurageliyay taageerada shakhsiyaad iyo ganacsi iyo kan aasaaska ee dhammaan ayagu dadka kala jooga ama kooxaha kala jooga gobolkani Maine khaasatan Seaport Credit Union Hannaford Supermarkets, IDEX, Co iyo Patricia Yowen,
Mainhausen iyo sidoo kale Sam L. Cohen Foundation. aad baad ugu mahadsantihiin taageerada aad noo fidiseen. Main Public News Connect waxaa suurageliyey Co iyo Patricia Yuen, kuwaasoo ay ka go'an tahay inay isu xiraan dhaqamada bulshooyinka kala duwan. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. Mainhausen waa guri raaxo. Gurigu waa furaha. Mainhausen waxay u taagan tahay inay ka dhigto guriga meel diiran, ammaan ah, ayna dadku awoodi karaan. Booqo mainhausen.org si aad u hesho adeegyo ay qabtaan oo dhammaystiran. Suuqa Hannaford wuxuu u dabaaldegayaa shaqaalahooda iyo macaamiishooda oo ah dad kala duwan iyo dhammaan bulshooyinka. Waxaa suuqa ka go'an inay abuuraan goob soo dhoweyn, si wada jir ahna waa meel ka sii weyn suuq. Si aad wax badan u ogaato, booqo hannaford.com. haddaad jeclaan lahayd inaad barnaamijkan ama mashruucan isii taageerto, fadlan la xiriir Corey Morrissey adigoo garaacaya 207 232 0241.